wixii ari raacuhu ka helay godkan waxay gebi ahaanba beddeleen noloshiisa. Elena waxa uu ku nool yahay kuna soo barbaaray tuulo ku hoos taala buuro aad u waaweyn. Shaqadiisuna waxay ahayd ilaa yaraantiisii in uu raaco ama dadka tuulada uu ariga u raaco, waana hawl iyo shaqo uu soo bilaabay xilli hore. Markii hore ee uu xoolaha raaci jiray waxa uu qaadan jiray qarash yar, sidaa daraaddeed mar dambe ayuu u baahday oo da'da 14 sano uu gaaray lacag badan. Sidaa daraaddeed shaqo badan ayuu u baahday, wuxuuna gebi ahaanba isaga tegay iskuulkii iyo waxbarashadii isagoo u faaruqay, sidoo kalena u go'ay hawshan iyo shaqadan uu qabto, isagoo lo'da iyo ariga iyo wixii la midaba markaa u raaci jiray dadka hantiilayaasha ah ee xoolahan leh ee tuulada degan. Wuxuuna sidaa ku heli jiray lacag ku filan oo uu markaasi noloshiisa ku kaafiyo. Wuxuuna Elena ahaa qof ay aad u jecel yihiin dadka tuulada, sidoo kalena ay aad u qadariyaan. Wuxuu ahaa qof aad ugu fiican hawshiisa, wuxuuna ku dadaali jiray sidii uu horumar uga samayn lahaa shaqadan, isagoo akhrin jiray buugaagta, sidoo kalena ahaa mid ogaada meelaha ay jecel yihiin xooluhu inay daaqaan ama ay waqti badan joogaan oo ay markaasi ku dararaan caano badanna ay markaasi ku keenaan. Markasta oo xooluhu faraxsan yihiin, daaq fiican ay cunaan iyo doog fara badan ay ka dhargaan, waa markasta oo wax soo saarkooda iyo tayadooduba ay soo muuqato. Subaxdii ayuu xoolaha soo kaxeeyaa, galabtii markii la gaarana waa uu soo caraabiyaa oo wuxuu keenaa xaafadihii, iyadoo markaasi habeenkiina ay tahay xilligiisa nasashada. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah galabtii isagoo xoolihii soo wadaa, waxa uu tiriyey arigii, wuxuuna arkay in mid ka mida riyaha ay maqan tahay. Ninkii iska lahaa neefka rida ah wuxuu u sheegay inaanu maanta wax lacaga sii doonin ilaa uu soo helo neefka maqan. Wuu soo baxay oo caawa jiifuma yaalla mar casriiqiya ayuu raadin ku bilaabay. Waa uu waayay ilaa habeenkii la gaaray, kadibna wuu iska soo laabtay. Subaxii ayuu soo kacay wuxuuna raadin u galay neefkii maqnaa. Kadibna waxa uu arkay raad uu u maleeyay in uu yahay raadkii neefka. Laakiin ugu dambeyn waxa uu ogaaday in raadkaasi aanu ahayn neefka maqan ee uu yahay raadka haramcad. Dhab ahaantii waa uu naxay wuuna argagaxay, wuxuuna is yiri neefka maqan waxaa cunay haramcadkaasi, sidoo kalena ku tegay oo ku yaacay. Wuu soo laabtay wuxuuna u tegay ninkii neefka lahaa, wuxuuna uga sheekeeyey wixii uu soo arkay sida uu filanayo. Lacagtii ayuu ninkii siiyey wiilkii, wuxuuna markaasi ka shakiyey isaga sababtoo ah wuxuu is yiri neefka isaga ayaa xaday. Sababta uu sidaa u leeyahay waxay ahayd mandiqadani laguma aqoon wax haramcada ama noolayaal nooca ugaarsatada ah inay ka soo agdhowaadaan. Elena waa uu isaga tegay shaqada uu ninkaa u qaban jiray, waayo wuu ka shakiyey mana aaminin. Dadkii tuulada sidoo kale sheekada Elena ma aanay aaminin oo way beenaysteen. Muddo kadib sheekadii way iska hilmaameen dadkii tuulada, xitaa Elena wuu iska hilmaamay, yacni arrinkii haramcadka iyo sheekadeedii. Muddo kadibse waxaa la ogaaday in la waayay xoolo kale. Haddana waxaa la waayay eeyo markaasi meela ilaalin jiray oo waardiye ahaa iyo kuwo kale oo badan, ilaa ugu dambeyntii cunug yar oo tuulada u dhasha la waayay. Markaa ay dadkii tuuladu xasuusteen sheekadii Elena, iyagoo markaasi rumaystay warkiisii. Dadkii tuuladu diyaargarow wayay galeen, xoolahoodii iyo ilmahoodiina way celiyeen xilliga habeenka, iyagoo sidoo kala dhigay dabinno ay doonayaan inay ku qabtaan noolahan ugaarsanaya xoolahooda. Rag iyo askar ayaa la diray si ay u baadigoobaan noolahan ugaarsanaya xoolahooda ee baabi'inaya, sidoo kalena ugu gamban duurka ay soo daaqi lahaayeen. Elena isagu wuxuu ka mid ahaa ragga wax raadinaya. Ugu dambeyn waxa uu ku soo dhacay meel gudah oo uu ku arkay lafaha iyo raqda xoolo hore loo waayay. Gudaha ayuu u soo galay godkii. Elena markii uu gudaha godka u galay, waxa uu arkay ilmo yar oo laba ah oo markaasi haramcad ku dhalay. Geesaha ayuu iska eegay isagoo isleh hooyadood meelaha ayay ka ilaashanaysaa, waxayna sugaysaa ilbiriqsiga ay kugu soo boodi lahayd, kadibna ay kugu dili lahayd. Si fiican ayuu geesaha u eegay, baarbaaray oo soo fiiriyey halka ay joogto. Laakiin waa uu waayay, waa uu raadiyey oo bannaanka ayuu u soo baxay. Ugu dambeyn waxa uu helay iyadii oo markaasi dabin ku dhacday oo dhaawacyo fara badan ay jirkeeda ku yaalaan.
wuu soo qaaday oo soo xambaaray, wuxuuna u geeyey ilmaheedii, isagoo godkii gudaha u geliyey dadkana ka qariyey, sidoo kalena ogaaday inay waajib ku tahay in uu noolahan miskiinka ah ee dhaawacan quudiyo isaga iyo dhashiisaba. Eliya geeda ayuu soo guray isagoo ku qariyey afkii godka, si markaasi dadka tuulada aanay u arkin haramcadkan miskiinka ah ee dhaawacan iyo dhashiisa uu meesha ku ilaalinayo. dadkii tuulada wuxuu u sheegay inaanu waxba helin, sidaa ayayna dadkii tuuladu isaga hilmaameen. wuxuuna maalin kasta u keenaa hilib ceyriin ah, iyadoo markaasi haramcadkii uu joojiyey weerarkii uu ku hayay xoolaha markaasi tuulada laga leeyahay. ugu dambayn, waxaa maalin maalmaha ka mida dhacday in Eliya uu waayey markii uu godka yimid haramcadkii. waxa uuna markaasi dareemay inaanu joogin oo uu meesha isaga tegay. laakiin su'aalaha ayaa isku dhiidhiibay. tolow halkeebuu ka baxay? makeyntuu u laabtay? ma soo laaban doonaa oo weerar ku soo qaadi doonaa xoolaha deegaanka? su'aalahaas ayuu isweydiinayay. muddo kadibna wuuba iska hilmaamay arrinkii oo xaalku wuxuu ahaa mid deggan, iyadoona aanu jirin wax haramcada oo markaas soo weeraraya xoolihii tuulada. haddaba maalin maalmaha ka mida Eliya oo duurka wareegaya waqtina iska qaadanaya ayaa waxaa weerar ku soo qaaday hortiisana ka soo baxay xayawaanka ama noolaha halista badan ee loo yaqaanay yeyda. waxa uu sameeyey ayuu garan waayey. bartiisii ayuu ku qalalay. hub ma haysto, waxa uu isaga dhiciye ma haysto, xitaa ma haysto ul uu markaa la dhaco. haddaba isagoo xaaladdaa ku sugan, aadna u argagaxsan oo xaaladdu ku adag tahay, ayaa waxaa meel dhow ka soo baxay 3 haramcada. mid ka mida xajmigiisu wuu weyn yahay, labada kalena waa dhexdhexaad. haddaba cabsi kale ayaa qabatay. wuxuu isiri maanta noolayaashan iyaa kugu soo habaaray. laakiin haramcadkii 3 ahaa waxay weerar ku qaadeen yeydii. dagaal ba'an ayay la galeen, iyadoo yeydii dhaawacan si xunna loo dhaawacay ayay meeshii isaga baxsatay. wuxuuna Eliya ogaaday in 3 haramcad ay yihiin labadii dhasha ahayd iyo hooyadood oo hadda ka hor badbaadiyey godkana uu ku qariyey halkaana uu ku quudin jiray. maantana ay abaalkiisii u gudeen. waxaa laga yaabaa xitaa markii haramcadku joojiyey weerarka uu tuulada ku soo qaadi jiray inuu u abaalgudayay Eliya, maadaama uu wanaajiyey uuna dhibaateen sidoo kale, isagoo awooday inuu dilo hooyada dhaawacan, ilmuhuna sidaa ay ku dayacmaan. laakiin maanu samayn. abaalkii uu u galay ayayna hadda u gudeen, iyagoo xaalad adag ka soo gaaray garabna siiyey. si kastaba ha ahaatee, caawintaa uu caawiyey noolayaasha ama haramcadkaasi iyo dhashiisaba waxay beddeshay gabi ahaan noloshiisa. sideed u aragtaa daawada qisadan? nagula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka. waa inuu mar kale fii amaanillaah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.